maantana waxaad ka sheekaysay nasabad haddii aad nasabad leedahay caada qaata maad noqoteen tuuga oo iibaan laawaa maad noqoteen garaad laawo jaamacow again ayan dhicin in aynu inagoo awooddaa leh dad inaga tamar yar oo inaga nasab yar in ay ina damaaciyaan inayan dib dambe u dhicin tala xumadii hore inayan dib inoogu soo noqon tala wanaagsan oo ay isku kaashadaan laakiin garaad laawo jaamacow waxaan ku leeyahay reer sheekh isxaaq uma faani kartid nasabiyad uguma faani kartid hanti uguma faani kartid dekad uguma faani kartid dhul uguma faani kartid macdan uguma faani kartid khaatiyaan dhalay baa tahay waxyaabaha noocaas ah isku soo hadal qaadin garaad umadeed baad sheeganaysaa dulli umadeed baa tahay bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel kastoy adduunka daafihiisa ka joogaan dal iyo dibadda halkan waxaan jawaab kooban ka siin doonaa ninka lagu magacaabo garaad jaamac garaad cali garaad laawo jaamac garaad dhalo khamriga halkan uga jawaabaya waxa weeye haddii ay qaar idhaahdaan jufadiisii habaarkiisa dhaca aniga habaarkiisu ha igu dhaco hadduu cid habaar ama ay cuqubo ay wax ku noqonayso isagaa wax ku noqon lahaa garaad dhalo ayaa wax ku noqon lahaa cuqubadii uu ka galay magaalada laascaanood 2023 bishii labaad shirkii halka isugu yimaadeen uu dagaalka kaga dhawaaqay cuqubadaas isagu ku dhiman lahaa ama uu ku baqti lahaa waayahay shalay buu soo istaago waxa uu yiri dad inaga nasabad fiican dad aan ka nasabad fiican nahay oo inu ka sarreyno mar labaad yeena dagin oo ina gumaysan anigu ma arag dhul bahante meel uu kaga nasabad fiican yahay beesha reer sheekh isxaaq meel kasto degtay maanta aniga garaad laawo jaamac siduu u yiraahdaa beesha reer sheekh isxaaq baan ka nasabad fiicanahay garaad laawo jaamacow miyaanad ahayn ninkii $5,000 markii aan kaa jaray oo Muuse kaa jaray ninkii miyaanad ahayn dagaal ku baaqay ka anigu lacagtiisa kugu gumaysanaya miyaanan ahayn daan beesha reer sheekh isxaaq ma adiga maanta nasabad ii sheeganaya ma adiga beesha reer sheekh isxaaq nasabad u sheeganaya garaad miskiin waxa weeye talabaad adigu maxaa degtaa halkee degtaa dekada qalalanaya wajaalo lagu magacaabo waxa weeye taasaa laascaanood ka weyno wallahi dakhliga la soo maro wajaale laascaano ma soo maro dakhliga Somaliland wajaale ka soo gala laascaanood kama soo gali jirin balse annaga lacagteedu ku gumaysan jirnay mushaharkii yaraa markii aanu kaa jarnay eed ma garanaysa gaajo baqtii gaadhoodii masaakiintii baan ku duulayaa guriyo Somaliland iyo horumarkii Somaliland ay sameeysan waan baabiinaya maantana waxaad ka sheekaysay nasabad haddii aad nasabad leedahay caada qaata maad noqoteen tuuga oo iibaan laawaa maad noqoteen garaad laawo jaamacow habeen kasta oo aad dhalo khamriye isku foororisinna waa habeenka aad waxaana jirin aad akhridid weeyaan waana ayaan daro waayahay talabaad bil waxaad ila eegtiin isagoo leh reeraha aan ka nasabada fiican nahay mar labaad yeena dagin anu cid uu ka nasabad weyn yahay uu ka nasabad fiican yahay oo uu ka dakhli badan yahay oo uu ka horumar badan yahay oo uu ka tujaar badan yahay ma arage bal haday leeyahay again ayan dhicin in aynu inagoo awooddaa leh dad inaga tamar yar oo inaga nasab yar in ay ina damaaciyaan inayan dib dambe u dhicin waayahay nasabada uu ii sheegayaa halkay taalaa war anigu waxaan leeyahay adigu YouTuberiska daalay iyo TikTokeriska ayaa kuugu fuuda markay imanayaan laascaano TikTokeriska ayaa kuugu fuuda aniguna waxa iigu fuuda ma garanaysaa madaxweynayaasha Afrika iyo kuwa dalalka kale iigu fuuda markay imanayaan Somaliland waxa iigu fuuda markii uu Mareykan soo diro danaha ayaga ka wada hadlano kuwaas aniga iigu fuuda adiguna maalin kasta wiil yaro fanaana oo adduunka wuxuu ka yahay inaan ognahay aakhirada halka laga joogo aan ognahay ayaan maalin kasta laascaano ku soo dhaweysaa nasabadaad ii sheegaysaa halkeen kala taaganay ma arkaysaa garaad laawo jaamacow aqoon darra ku haysaa maalinta dhalo khamriga cabtina waa maalinta aad wax aan jirin aad ka tiraahidba balse mid baan ku sheegaya anigu waxaan leeyahay dekada Afrika ugu weyn
dekedaha afrika sida saxda u shaqeeya anigaa leh adiguna hara ma lihid hara biyo laga cabo ma lihid war nasabadaad ii sheegaysaa maxay tahay tujaar haddii ay noqoto waan kaa tujaar badanahay oo iskuma dhowin haddii ay dhul iyo deegaan noqotona waan kaa dhul badanahay oo waan kaa deegaan badanahay war nasabadaad maanta ii sheeganaysaa waxa weeye maxay tahay garaadlaawo jaamaco maxay tahay war bal waxaad leegtiin ka labaad ee garaad jaamac garaad ismaaciil la yidhaahdo garaad qasqas oo wiil yaroo youtuberi sida uga gerinayo maxaa dhaa kursigii uu kusoo dhaweeyey leega hadda garaad maashadan ku salaamaya maanta aada ugu faraxsanaa garaadkii laascaanood inaa imaad waxaa ku garanaysaa garaad jaamac inaad la kula doorto horta kursigan kursi aan caadi ahayn waayo waa kursigii somaliland loogaga saara laascaanood oo yaa ka saara ninkaad ragga garaad aada u mahadsantahay inaad ka saarto somaliland laascaanood waxaan ku faraxsanahay inaan kula kulmo aadan mahadsantahay aad baad u mahadsantahay waa ii egtahay maxaa aabay maanta waxa weeye Soomaalidu ma sheegayna wax gaar ah naga dhaxay horta anigu laascaanood kamaan saaray dadka deegaanka oo dhan baa ka saaray sax waa shuhadada oo xaggana baa u dhintay garaadadu hurmud ka ahaayeen waxa weeye guddigii 3 ka ahaa oo iyagu laf dhabar u ahaa halkan Soomaaliya oo dhan baa ka shaqay laakiin anigu kelmadii ugu horreeyay baan lahaa Soomaaliland dalka ka baxay intii dambana wala isgaarnaa marka waayahay haddaba wufuuddii ay soo dhaweynayeen aan idiin sheegayo waa kaa raxan weyntii iyo ma garanaysa nimanka jareerta la yidhaayo iyo iminka laascaanood ku soo dhaweeya somalilandna maalin kastuu ka soo hadlo masayr baa haya masayrkii dumarka qaban jiray ma garanaysaa ma ku dhici jiray marka lala guursado kaasaa garaadlaawo jaamacaya laakiin garaadlaawo jaamaco waxaan ku leeyahay reer sheekh isxaaq uma faani kartid nasabiyad uguma faani kartid hanti uguma faani kartid dekad uguma faani kartid dhul uguma faani kartid macdan uguma faani kartid khaatiyaan dhalay baa tahay waxyaabaha noocaas ah isku soo hadal qaadin waxa weeye maalin kasta kamaradu isusaa wallaahi adiga youtuberada oo bilaahi youtuberada ayaa kaa qiimo badan intay doonaan garaad umadeed baad sheeganaysaa dulli umadeed baad tahay